soo dhawaada saaxiibayaal, waxaynu muuqaalkan ku eegi doonaa qisada guusha Harry Wheel, ninkii qashinqaadaha ahaa ee guusha haltiyey. waxaan idinla wadaagaynaa qisada guusha ninkii qashinqaadaha ahaa ee waxla aan baran isla markaana gaaray guul weyn. waa Harry Wheel. haddii aynu raacno qaababka faqriga iyo sida bini'aadamku uu wax u qiimeeyo, waxaa inoo soo bixi inaysan macquul ahayn in ninkan uu gaaro guul la taaban karo marka aad eegto noloshiisa iyo xaaladda uu markaasi ku sugnaa, balse waxa ay tali aynu ka baran karnaa in qiyaadka haltiyadeed ee Ilaahay aysan cidlo ka mamnuuc ahayn. qisadan ayaa waxa ay la baraysaa in guul lagu gaari karo shay u muuqda mid aad u liita, iyo inaad halti yeelataa inaysan ku xirleen barashada cilmi gooni ah iyo heesashada shahaado sare. haddaba haddii aad wax ka faa'iido muuqaalkan oo aad ka hesho laag inoo saar, waxay naga caawinaysaa inaynu garanno keenitaankaaga iyo in muuqaalka uu inoo gaaro saaxiibo aad u fara badan. mahadsanid. Harry Wheel waa nin asal ahaan Hollandees ah, kula dhashay Maraykanka, waxaana uu ka mid yahay ragga salka hoose ka soo bilaabay ee guusha haltiyey. marka uu 12 jir gaaray, waxa uu indhaha ku kala qaaday isfurka labadiisa waalid, taasi oo keentay inuu qoyska uu aad u kala furfurmo, iyada oo aynu qiyaasi karno ugu yaraan dayaca carruurta ee ka dhalan kara isfurka iyo kala tagga labada waalid. marka uu 15 sano gaaray, waxaa laga soo celiyey iskuulkii, balse waxa uu ahaa wiil dhaqdhaqaaq badan, iyada oo markii uu gaaray 22 sano jir uu bilaabay inuu ka shaqeeyo shirkad ka shaqaysa dhinaca iyo qashinqaadista, mana laha wax aqoon kale oo uu ku shaqaysto. 2 howl ayuu isku qaban jiray, sida inuu ahaa darawal kaxeeye gaariga qashinka lagu qaado iyo inuu shirkadda ku soo xiro macaamiil cusub oo inta uu dadka u tago oo ugu tago guryahooda ka soo gado shirkaddiisa iyo shaqada ay qabanayso ee ah in qiimo macquula ay qashinka ugu qaadayso. balse 2 sano markii howshaasi uu waday, ayuu isweydiiyey su'aal ahayd, weligaa dad maad u shaqayn? isaga oo xilligaasi isku qalcilayay in uu ka baxo sugitaanka bishaar 5 bisheeda go'a iyo deen joogto ah. haddaba Harry Wheel waxa uu furtay shirkad yar oo ka shaqaysa qashinka, balse ma laha wax gaari ah oo qashinka lagu qaado. nin ay saaxiibo ahaayeen ayuu ka iibsaday gaari qadiim ah oo nooca qashinka lagu qaado ah, oo halkaasi gaari ayuu ku shaqo bilaabay. dadaal adag iyo juhdi fara badan oo uu geliyey shaqadiisa iyo jaceylka uu qaba darteed, waxay sabab u noqotay in shirkaddiisa ay ku faafto gobolka Florida oo dhan. waxaa kaloo jirtay shirkad kale oo yar oo uu lahaa lilay qaraabo ahaayeen, oo iyaduna ka shaqaysa dhinaca iyo qashinqaadka, inkastoo muddo yar kadib ay midoobeen iyaga oo la baxay magaca shirkadda maareynta qashinka. Harry iyo shirkaddiisa waxa ay ku guulaysteen iibsashada 133 shirkadood oo yaryar oo ka shaqeeya dhinaca iyo nadaafadda. 10 sano kadib, Harry waxa uu xaqiijiyey in shirkaddiisa ay ku fadhido lacag dhan $82 milyan, 60,000 oo shaqaale ah iyo sidoo kale 600,000 oo macaamiil ah. waxaa xusid mudan in Harry uusan ku ekaan shirkadda maareynta qashinka oo keliya, balse haatan uu leeyahay shirkado kale oo fara badan. haddaba haddii aad wax ka faa'iido muuqaalkan oo uu ku xiiso geliyey, laag inoo saar, sii la sheergaray si muuqaalka uu u gaaro dad aad u fara badan. mahad
salid.